جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء لا أبالي شرقه من غربه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan idil ahaantiin meel kastoo joogtaan, waxaan idiin rajeynaya inaad nabad qabtaan. Waa barnaamijkeenii taxanaha ahaa aynu kaga warramaynay ilbaxnimadii iyo sooyaalkii wadankii la oran jiray Andalus, oo iminkana la yidhaahdo labadan dowladood ee ay maamulaan Spain iyo Portugal. waxay noo joogtay xalqadeenii labaad ama qeybteenii labaad. waxay noo joogtay Musa ibn Nusayr oo amni istiqraariya ku sugay dowladii la oran jiray ama dhulkii la isku oran jiray al-Maghrib la isku oran jiray, qorsheynayana sidii uu ku furan lahaa jasiiratul Andalus ama jasiirada moodii la oran jiray Andalus. insha Allah tacaala maanta waxaynu ka warrami doonaa Musa ibn Nusayr waxaa soo wajahday dhowr caqabadood. caqabadahaas qaabkii uu u xaliyey waynu ka warrami doonaa, iyo caqabadii soo wajahday maxay ahaayeen iyo qaabkii uu xaliyey waynu ka warrami doonaa. waxaan kaloo ka warrami doonaa barbilowgii furashada jasiiratul khadraa ilaa laga gaadho albaabka Dulaydile oo ahayd caasimadii qowdiyiinta. caqabadihii soo wajahay Musa ibn Nusayr waxay ahaayeen waxa ugu weynaa 3 caqabadood. waa marka koowaad doonyo la'aan, meesha la marayaana ay lahayd laag yar oo biyo ah oo bad ah, ilaa culimadu waxay ku qiyaashan 13 kilomitir inay ahayd. caqabada labaad ee soo wajahday waxay ahayd jasiirado fara badan oo loo yaqaano Jazrul Balyaar oo kasoo sokeeyey Andalus ama xagga bari ka xigay Andalus. caqabada saddexaad ee soo wajahday Musa ibn Nusayr waxay ahayd magaalada Sabta la oran jiray oo ay gacanta ugu jirtay nin la oran jiray Julian oo ahaa nin Nasaara ah. meligii hore ee Andalus aysan jirin ay saaxiibo dhow ahaayeen, ay dhashay ninkii la oran jiray ay saaxiib ahaayeen. hase ahaatee laakiin Musa ibn Nusayr wuxuu arkay caqabadahaas salaan iyo jaranjaro uu kaga gudbi karayo hamiga iyo hanka uu leeyahay iyo waxa uu muuqda. isla markiiba waxa uu qorsheeyay horta caqabadii koowaad sidii uu xalin lahaa Andalus iyo waqooyiga Afrika waxa u dhaxeeya laag yar oo bad ah oo cabirkeedu yahay 13 kilomitir. laagtaas yar waxa ay la magac baxday waa laagta loo yaqaano Madiiqu Jabal Taariq. waqtigii horena waxaa la oran jiray darbu ziqaaq baa la oran jiray. intaan la furan markii uu Taariq ibn Ziyad hogaamiye la oran jiray maray meeshuu maray baa waxa loogu magac daray Madiiqu Jabal Taariq, buurtiina waxa loogu magac daray Jabal Taariq. waqtigan aynu joognana marka adigu Ingiriis waxay ku noqonaysaa Strait of Gibraltar. Musa ibn Nusayr waxa uu ka warhayaa inaanay muslimiintu u carbisan inay bad ku dagaalamaan, sidoo kale ayna lahayn doonyo waaweyn oo xadiga intaas leega markaa qaadi karaya oo mari karaya. waxay ku noqotay caqabad. hase ahaatee fula isdhiibay waxa uu Musa ibn Nusayr u arkay caqabadaas miduu xalkeeda keeni karo. waxa uu isku dayay inuu diyaariyo dooniyihii uu kaga gudbi lahaa badda. taariikhyadu waxay sheegaan markaa in uu bilaaway sameyntooda 888 hijriga kuna beegan 707 miilaadiga. dhageysta u fiirso, waxaa Andalus la furtay 29 hijriga, taasoo macnaheedu tahay muddo 4 sano ahba waxa uu isu diyaarinayay inuu xaliyo hal caqabad.
taasi waxay ku tusaysaa haddii aad hami sare leedahay sannaduhu waxay kuu noqonayaan maalmo, caqabaduna waxay kuu noqonayaan salaankii guusha aad ku gaari lahayd. caqabadda labaad ee soo wajahday aan soo sheegnay waxa weeyaan jasiirado loo yaqaano Jazrul Balyaar ayaa waxay ka sokeeyeen Andalus. Andalus markaa intaan la gaadhin waxa ku yaala dhowr jasiiradood loo yaqaano Jazrul Balyaar kuwaas oo dhaca koonfur bari Andalus bay dhacaan. Andalus marka taagan tahay koonfurteeda bari waxaa ku yaala jasiirado yar fara badan oo xatalaan ku jira oo loo yaqaano Jazrul Balyaar. jasiiradahaas dadkii deganaa waxay ahaayeen dad taageersan oo taabacsan boqorkii ama boqortooyadii ka jirtay Andalus. qowdiyiintii bay taabacsanaayeen. marka haddii ay muslimiintu iska dhaafaan jasiiradaha yar oo ay Andalus u gudbaan ilaa waxay taagan yihiin waqooyiga Afrika ay taagan yihiin, magaalada Sabta ay taagan yihiin, waxay taagan yihiin Danja magaalada loo yaqaano. haddii ay ka gudbaan oo markaa Danja waxay dhacdaa galbeedka koonfur galbeed bay dhacdaa Andalus. hadday dhaafaan jasiiradahaas waxay ka baqanayaan in dhabarjabin lagu soo sameeyo. sidaa daraadeed jasiiradahaasna waxay ku noqdeen caqabad. waxay noqotay markaa jasiiradihii in ay marka hore muslimiintu furtaan. ficlanna sidii buu sameeyey Muusa ibn Nusayr. jasiiradihii buu soo furtay. jasiiradihii markuu soo furtay ayuu markaa u gudbay inuu Andalus furto. caqabadda saddexaad ee soo wajahday waxaan sheegnay waxa weeyaan magaalada Sabta la odhan jiray oo ahayd magaalo istiraatiiji ah, xataa al'aan istiraatiiji weeyaan. waxaa haysta iminka waxay ka tirsan tahay xuduudda Morocco, laakiin waxa maamula oo xoog ku haysta dowladda Spain baa haysata. waxa maamula markaa haysata dowladda loo yaqaano dowladda Spain baa iminka maamusha. magaalada xataa al'aan taariikhda berigii hore baal dahab ay kaga jirtay, iminkana baal dahab ay kaga jirtaa. haysashada magaaladaas markaa waxay ku noqotay caqabad. Muuse waxa uu ku fakeri jiray sidii uu furan lahaa iyadana maadaama labadii caqabad ka horreeyay soo xaliyay. haatee laakiin magaaladaas furasheedu magaalo aad iyo aad u adag bay ahayd maadaama uu xukumi jiray ninkaas loo yaqaano Julian oo ahaa nin dagaalyahan oo aad u adag maadaama ahaa. waxa ku adkaatay markaa muslimiintu inay furtaan magaalada. markaa Julian ninka la oran jiray wax xukumi jiray. waxaa kaloo magaalada joogay caruurtii qaydasha dhalay markii uu Ludeeriq ninkii la oran jiray kasoo waranay afgamiyey qaydasha qowdiyiintu ahaa. wuxuu ahaa reerkii xukumi jiray iyo qoyskii xukumi jiray Andalus buu ahaa ka tirsanaa. adigu waxaa afgamiyey ninka loo yaqaano Ludeeriq. caruurtiisii markaabaa soo cararay. caruurtiisiiba waxay soo magan galeen ninka loo yaqaano Julian ee magaalada Sabta. sababtay usoo magan galeen waxay Julian iyo waxa saaxiib ahaa qaydasha saaxiib ahaa. waxay u arkayeen markaa meesha kaliya ay ku badbaadiyaan inay tahay magaalada Sabta ee ninkaas xukumo. ninkana godobo hore wuxuu ka tirsanayaa Ludeeriq ninka loo yaqaano. sida caruurtan saaxiibkii dhalay oo hanti badan kaga yimid magaalada loo yaqaano Dulaydila, diyac fara badan kaga yimid. sidoo kale inantiisii oo la sheego inuu farxumeeyey ayuu wuxuu ka tirsanayaa taaqiyinadu sheegaan ayaa wuxuu ka tirsanaya caqabadaas. marka ninkan isagoo awalba u ciil cunsanaa oo awalba ay ishayeen ayaa waxa uu maqlay markaa waxaan ku maqlay ciidankaas muslimiinta ee doonayay inay furtaan Andalus faraha badan leh ee doonayay halka inay ka gudbaan. waraaqu markaa wuxuu u soo dirayaa Muusa ibn Nusayr. Julian baa waraaq u soo diray Muusa ibn Nusayr. waraaqdu waxa uu ku sheegayaa fariinta waxa ku sheegayaa dhulka Andalus. wuxuu oranayaa waraaqda waxaan uga dhigayaa uu ku soo qorayaa magaalada Sabta horta waan kugu wareejinayaa. dhulka Andalusna waan ka caawinayaa furasheeda. haday juqraafiya haday maabkeeda tahay qaabka magaalooyinka meeshaad maraysid iyo dhulkaad furanaysid iyo istaraatiijiyad ku dagaalamaysid inta waan ka caawinayaa. Muusa ibn Nusayr waxay ku noqotay arrintaas arrin qariiba bay ku noqotay maadaama oo wax aan la filayn bay ahayd oo muslimiintu ay ku fikirayeen magaaladaas ay furanayaan. caqabadaha kale haystay waxaa ka mid ah caqabad yar bay iyadoo ahayd. waxaan xusi weynay waxay caqabadaha yar bay ka mid ahayd dhulka Andalus juqraafiyadeedu aanay garanayn muslimiintu oo dhul aan hore u teganay tahay. marka ay ku adkaanaysa meelaha laga dagaalamo meelaha dagaalku fiican meelaha laga galo sida loo furanayo way ku yar adkayd. wuxuu ku dhul karaana ka caawinaya. aniga bedelkeeda waxaad siinaysaa waxaad ii ogolaataa marka aad furatid Andalus inaad nagu soo wareejid diyaacii iyo hantidii iyo xoolihii waalidkayo, yacni ninka ay saaxiibada ahayn iyo caruurtan
caruurtan dhalay maliku qaydasha ninkii la odhan jiray diyaac fara badan iyo hanti fara badan batay ilaa culimada ay sheegaan 300 oo beerood iyo 300 kun bay sheegaan adigu tira badan bay sheegaan iminka Muuse ibn Nusayr caqabadii hortaagnayd saddexdii caqabadii hortaagnayd wuu xaliyay daa'imanna dadku waxay ku kala baxaan waa caqabadahaas waa qofna wuu xalinayaa qofna dib uga guranaya Muuse ibn Nusayr waxa uu muuqata baddaas iyo jasiirad la mooda Andalus waxa uu diyaariyay ciidan 7,000 oo qof ka kooban waxa uu hoggaan uga dhigay ninka loo yaqaano Daariq ibn Ziyad oo dhashay adu taariikhda waxa uu saarin dhashay konton taariikhdu markay hijriga ahayd konton ahayd waxa uu hogaamiyay mayal adag oo aan gaban geesi dagaalyahana iyo xalaal miirada waxa uu intaas u dheeraa inuu barbari ahaa ciidanka badankiisuna waxay xalqadii ka horeysay ku sheegnay ciidanka badankiisu inay ahaayeen barbariyiin Muuse ibn Nusayr markii uu Maqrib qabsaday in uu soo dhaweystay dadkii loo yaqaanay barbariinta oo qabiilada Amaziiqa inuu soo dhaweystay inuu ciidankii qoray inuu diintii baray baan hore u soo sheegnay taasuna waxay ka dhigtay Daariq ibn Ziyad doorasho wanaagsan maadaama ciidanku مثلا راقي وسرجاني وكلا كتابkiisa qisatul Andalus wuxuu ku xusayaa xoraya doorashada uu Daariq doontay waxay ku tusaysaa caqli badnaanta iyo qaab hogaaminta toolmoon ee wanaagsan ee Muuse ibn Nusayr doorashada uu doortay Daariq waxay ahayd mukaafaca buu odhanay yani uu beegtoon bay ahayd maadaama ciidanka iyo dadka uu Maqrib degnaa ay badankoodu ahaayeen min qabiil al-Amaziiqiya ay ahaayeen waxa uu Muuse ibn Nusayr u arkayay haddii uu ciidanka ka dhigo nin caraba inaan ciidanku kalsooni dheeraad iyo dhiirigelin dheeraad inaan qaadan laakiin marka uu dareensiiyo in ciidankii wax ku leeyihiin ay dareemayaan mukaafao oo mid labaad ninkan Daariq ibn Ziyad oo ahaa nin aad iyo aad u caqli badan mujaahidna ahaa dagaalo fara badan iyo saraayaad fara badan la soo galay oo uu soo tijaabiyay ahaa waxay noqotay markaa doorasho wanaagsan oo uu doortay Muuse ibn Nusayr daa'iman hogaamiyuhu waa halka hogaamiyaasha lagu kala garto hogaamiyuhu waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah qofkii iyo meeshii ku habbooneyd isla garanaya oo isla dooranaya laakiin haddaad ka dhigtid sheekada ama barasaabadaada iyo hogaamiyaashaada ciidanka haddaad ka dhigtid qaab qabiili haddaad dooratid adiguna sumcadaada waa dilaysaa waddankiina sumcadiisii waa dilaysaa markii uu Muuse ibn Nusayr markaa ciidankii u dhiibay hogaamiyaha mayalka adag ee loo yaqaano Daariq ibn Ziyad waxa uu qorsheeyay qaabkii uga gudbi lahaa baddaas waxay markaa ka gudbeen baddii 7,000 ciidanka iyo Daariq ibn Ziyad hogaaminayay waxay ka gudbeen baddii waxay tageen meesha loo yaqaano ay degeen Jabal Daariq buurta loo yaqaano buurtii bay waxoogaa ku nagaadeen markay buurtii ku yar nagaadeen waxay damceen inay u ruqaansadaan oo ay aadaan jasiiradda loo yaqaano jasiiratul Khadraa intaanay markaa jasiiratul Khadraa gaadhin waxa ka hor yimid ciidan waxaa leeyahay wuxuu Daariq ibn Ziyad u diray waraaq ah in ay magaalada ama jasiiratul Khadraa ay gacanta muslimiinta ku soo dhacdo dadka ku nool nasaarada ama ciday doontaba ahaatee ay sida muslimiinta oo kale loola dhaqmayo daa'imanna muslimiintu waa sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam sameyn jiray asxaabtiisii muslimiintu intaanay magaalooyinka furan waxay sameyn jireen waraaqay diri jireen diinta ay dadka ugu baaqayaan hadday diinta diidaan inay jizye bixiyaan hadday jizyada diidaan inay dagaal u diyaargaroobaan aduu magaaladaas jasiiratul Khadraa dhulka la odhan jiray waa dhul cagaaran oo qurux badan ahaa waxa xukumi jiray in loo yaqaano Tadmuuri ay taariikhyahanadu ku xusaan Tadmuuri markay waraaqdii gaadhay akhadatul Izza taariikhyahanadu sheegan yani isla weynidii baa qabatay waxa uu damcay markaa inuu la dagaalamo intaan markaa dagaalkaa gelin wuxuu waraaq u diray Liuderiq oo ahaa boqorkii markaa Andalus ee fadhiya Duraydila waraaqda waxa uu ku odhanayay waxa loo yimid qola aanan garanayn macirka ayay ka soo dhaceen mise dhulka ayay ka soo baxeen laga soo gaar yani waraaq noocaas oo kale buu diray hadalkaas markii uu Liuderiq maqlay waxay taariikhyahanadu sheegaan inuu u qaatay inay yihiin rag budhcad ah oo xoolo doon ah oo iskana noqon doonaan halkaa markaa ay ku istaagi doonaan wuu yeerasay wuu dhayarsaday hase haatee arrinku intii wuu ka adkaaday jasiiradiina waa la furtay Daariq ibn Ziyad wuu furtay
waxa uu Daariq markaa usii ruqaansado u kacay xagga iyo Dulaydila markaa waxaa kasoo sokeeya magaalooyin yar oo fara badan Ishbiiliya, xaggan bariga waxaa kasii xiga Qordoba, magaalooyin yar oo fara badan baa kasoo sokeeya. intaanu markaa Dulaydila gaadhin, markii uu marayay meesha loo yaqaano Waadi Birbaad, meesha leedahay markuu marayay meel dhow markii uu marayay ayaa waxa Ludeeriq baa fariinta helay inay ciidan kusoo socdaan Andalus. waxa markaa waxa uu diray ciidan uu hogaamiye uga dhigay inankii abtiga oo ahaa ee loo yaqaanay Baansho waan malaynaya magaciisu ahaa, waa nin aad u taariikhay in magaciisa isku yar khilaafan oo aad u magac adag. ciidankaas iyo ciidankii muslimiinta iska hor yimid. ciidankii markaa adigu Baansho waa la jabiyey, muslimiintii waa guuleysatay. firdhadkiisina waxa ay u kala baxsadeen magaalada loo yaqaano Qordoba oo noqon doonta markaa caasimadda muslimiinta ee Andalus. markii uu maqlay Ludeeriq jabka ku dhacay ciidankiisii, waxa uu isku diyaariyey inuu isagu ka hortago markaa ciidankaas muslimiinta ee uu hogaaminayo Daariq ibnu Siyaad. meesha loo yaqaano Waadi Birbaad sokadeeda marka ay marayeen muslimiinta oo 7,000 ah, 7,000 ay kaga soo baxeen Maqrib ay kaga soo baxeen. ninkan loo yaqaano Ludeeriqna waxa uu soo kaxaystay in ka badan 100,000 oo ciidan iyo gaadiidkoodii. waxaa la sheegay culimadu inuu soo qaatay taashkiisii iyo kursigiisii dahabka ka samaysnaa, isagoo iskibir iyo isla weyne ay ku jirto. halkiiba markaa muslimiintu ay isku diyaariyeen ciidankii. markaa Daariq ibnu Siyaad wuxuu arkay inay ciidankiisu aad iyo aad uga yar yihiin ciidanka Ludeeriq ama ciidanka Nasaarada. waxa uu u diray markaa Daariq ibnu Siyaad ciidankiisii, waxa uu u diray baan leeyahay waraaq hogaamiyihiisii Muusa ibnu Nusayr uu leeyahay ciidanka gaaladuna waa intaas, annagana ciidankaygu waa intaas, waxaan kaaga baahnay markaa madad iyo taageero. waxa markaa Muusa ibnu Nusayr u soo diray ciidan gaaraya 5,000 oo hogaamiye uga soo dhigay Dariif ibnu Maalik. waxa uu ahaa ninkii sirdoon ahaanta loogu diray Andalus intii aanu markaa Daariq ciidanka loo dhiibin. sidaas ayay markaa muslimiintii ku noqdeen 12,000 oo ciidan. hase ahaatee u fiirso, weli isuma dhigmaan tir ahaan isuma dhigmaan ciidanka muslimiinta iyo ciidanka Nasaaradu. tay ahaanse laakiin waxay kala yihiin buur iyo bannaan. Daariq waxa uu markaa bilaabay inuu qorsheeyo, inuu dejiyo qorshe ah qorshihii uu ciidankaas kaga hortegi lahaa ee ku habboonaa. waxuu markaa qorsheeyey inuu dego meesha loo yaqaano Waadi Birbaad. Waadi Birbaad waa waadi yar oo markaa intaa xuduudda u dhaxaysa Dulaydila iyo dhacda magaalada loo yaqaano Jasiiratul Khadra, goobta yar loo yaqaano dhacda. qorshaha markaa uu dooranayo Waadi Birbaadna waxay u eeg tahayba qorshayaashuu nebigu degayay dagaalkii Beder iyo dagaalkii Uxud, qorshayaashuu nebigu calayhi salaatu wasalaam degayay. adigu dagaalkaas waa dhacay. dagaal baa halkaa ka dhacay, loogu magac daray Waadi Birbaad, Englishna Battle of Guadalete, waxa noocaasa la yidhahdaa. culimada qaar sida ibnu Kathiir oo kale wuxuu soo noqday Waadi Lubka waxa loo yaqaano. halkaas ayaa markaa muslimiintii iyo Nasaaradii waxa ku dhex maray dagaal socday 8 cisho. dagaalkaasi waxa uu noqday dagaal taariikhda adduunka dagaal ku suntan buu noqday. waxuu noqday dagaal lagu kala saaray xaq iyo baadilkii, sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku yiri qul jaa alxaqu wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa. Ludeeriq markaa waxay taariikhyadu sheegaan inuu firdhaday oo cararay. qaarna waxay sheegaan in la dilay. waxaa loo badinayaa inuu la dilay baa loo badinayaa halkii lagu dilay. muslimiintuna waxay heleen qaniimo iyo xoolo aad iyo aad u fara badan. daa'imanna muslimiintu markay dagaal gelayaan waxay ku tusaysaa inaanay qaniimo iyo dagaal u socon. u fiirso, markii ay ballanta gelayeen ninkii loo yaqaanay Yulyaan muxuu ballanta ku galaa? ilaa waxay baahatay taariikhdeena iyo dul istaagno. waxa uu ballan ku galeen muslimiintu inay diyaacii yaalay magaalada Dulaydila oo ay culimadu ku sheegaan diyaac iyo xoolo aad iyo aad u fara badan. waxa uu Muusa ibnu Nusayr muu arkayn isagoo xoolahaas iyo waxaa halkaa yaala waxuu muu arkay, laakiin wuxuu arkay inay diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala faafto ayuu wax weyn u arkay. ficlan tiibaa dhacday oo Muusa ibnu Nusayr bilaa shuruud buu ku galay heshiiskii, xoolihiina sidii buu ugu wareejiyey markii dambe.
marka waxa ku tusaysaa muslimiintu inaanay qaniimo iyo xoolo badni inaanay u socon, laakiin waxa ay u socotaa ay tahay inay diinta jihaadka waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibay tahay inay diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku faafto adduun weynaha saan cidna hadhow maanta qiyaame xujo u helin. waxyaabaha markaa laga baranayo dagaalka waxaa ka mid ah tira badnaantu ma sheegto inaad guuleysanaysid. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waxuu ku leeyahay كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني هيدا waxay ka waramaysaa waa fi suurati al-Baqara. taariikhdu markaa waxa ku soo inay tahay buug yani gaboobay oo hadda dib loo cusboonaysiinayo. yani taariikhda culimadu waxay sheegaan waa dabca jadiida bay sheegaan. yani wixii waa hore dhacay ayaa haddana dib u dhacaya oo dib u soo cusboonaaday. laakiin maaha wax cusub oo inagu barbilow oo inoo imanaya. waxay maraysaa markaa Muusa ibnu Sayr oo jooga meesha loo yaqaano Khayrawaan, hogaamiyahana diray Taariq ibnu Siyaadna uu dhul badan oo Andalus furtay, iminkana uu ku sii socdo inuu albaabka Dulaydila garaaco. insha Allah tacaala xalqadeena xigta waxaanu kaga warrami doonaa Taariq ibnu Siyaad oo taagan albaabka Dulaydila iyo magaalooyinkii ka sokeeyay qaabkii loo furtay sida Qurtuba iyo magaalooyinkii yaraa ee Qarnaada iyo magaalooyinkii yaraa ka sokeeyay sida loo furtay. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي عانقت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. وتر ما في من عيب سوى أنه مر كلمح البصر ستدى السهم فاصوى إثرما بفؤادي نبلة المفترس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس.